fursad uma helin adika oo dhan oo sidaan u wada jooga inaan idin dhaho hambalyo waxaan rabaa inaan idin dhaho marka ugu horeysa horta hambalyo qof iyo koox iyo dadka qaarkiis waa isu aragnay laakiin adikoo sidaan u dhan ismaynaan helin weli marka waxaan idin leeyahay hambalyo dadaal iyo karti dheeri ah iyo maxaan ku yiraahdaa aqoon iyo shaqo la qabtay ayaa ku soo baxdeen nomination magacaabis iyo 4.5 reer hebel keenso qofkaagi iyo adiga keenso qofkaagi kumaydaan soo bixin cod aad kasbateen oo dadka saaxiibada ah oo xisbiga ka tirsan iyo taageerayaasha guud ah ku qanciseen inaad tihiin dadka hogaamiyayaasha saxda ah ee deegaankiina iyo dadkooda ugu habboon in maxaan ku yiraahdaa ay hogaamiyaan aad ku qanciseen oo bandhigteen oo tusteen ayaa horta idinku doortay waxaan rabaa markaa in dhalinyaro inaa aad iyo aad u ogaatiin qabiil ma matashid inaa ogaatiin aan rabaa dadka Soomaalida marka la kala furfuraayo oo la kala waxeynaayo oo mushaakilaad dhexdooda la dhigaayo qalbigooda wax la gelinaayo qabiilka loo isticmaalaa anagoo reer hebel ma saan la dhigi karay anagoo reer hebel iyo nasiib daro dadku qabiilku waa ku dhib badan yahay sheekooyinka oo laga sameeyay dhalinyaradiina gabdhay wiilalba doorashadii councilska gobolka Banaadir ku soo baxay guud ahaan yaan sheegayaa dhalinyaro isku jufa ah oo inta israadsatay iswacatay meel ku qabta xaflad leh gudoomiyaal degmooyin see u helnaa haddaan nahay reer hebel dhalinyaradaas dhowr xisbiyo kala duwan ay ka tirsan yihiin dhowr degmana waa ka kala tirsan yihiin muxuu ka qaban karaa ninka degmada Kaaraan jooga degmada Cabdicaziz muxuu ka qaban karaa ama degmada Cabdicaziz ka jooga degmada Dayneel muxuu ka qaban karaa codkiisi meeshaas uu yaala midka kale ee qaraabada iyo xagga jooga uma codeyn karo si gudoomiyihii loo soo saaro councilkaagii degmadaadii aad ka dhex codeyn kartaa inta aad tihiin oo maxaan ku yiraahdaa councilorska degmadaasaad yaad doorkaaga leedahay aad ka codeyn kartaa koow isku xisbi ma ahidin reer hebel waan nahay laakiin isku xisbi ma ahin waagii sheekadii maxaa isku jufa ma ihin la dhihi jiray oo kale ay hadda joogto isku xisbi ma ahin ani xisbigeega u taaganahay mabaadida xisbigeega u taaganahay aragtida xisbigeega u taaganahay waxaa ii dhow oo tol igu ah siyaasadeed kan xisbiga ila ah kaasaan tol siyaasadeed nahay iyo kan xisbiga kala ah laakiin aan aragti isku mid ah isla riixno ajandahan aan isla riixno aan isla garanno yaan isku nahay yaan tol siyaasadeed nahay marka waxaan rabaa dhalinyaro qodobka koobaad oo inaad aad iyo aad idinku adkaynaa waxa waaye qabiilka waa laydinku kala furfuraa qabiil waan nahay laakiin meeshiisuu leeyahay meeshuu lahaayaan ku haynaynaa xisbiga dhexdiis iyo siyaasadda casriga ee maanta socotahay runtii qabiilka laana qabiilkaaga ajanda siyaasadeed uu leeyahay ma jiro reer hebelaan nahay haddaan reer hebel nahay war mugaan geela kala dhacayna iyo mugaan maxaan ku yiraahdaa aan ceelka isku herdina aan dhahno laakiin maanta ma joogto degmada lagaa doorta hal qabiil ma degana dadka codka ku siiya hal qabiil ma ahan damiirkaaga marka iyo diinkaaga waa inuu ku hogaamiyaa ood u aragtaa dadkaasi waxa ay mudan yihiin waa qodobka labaad oo aan rabo maskaxdiina ku weynaad in badan aan ka wada hadli doono dadka ku doortay ee Soomaaliyeed siyaasadda wakiil uga ma ahid siyaasadda aad wakiilka uga tahay waa siyaasadda deegaanka ee adeega bulshadaas siyaasadda ama siyaasadda Muqdisho golaha caasimadda niman ilaahay loo dooro doonaa siyaasadda qarankana baarlamaanka federaalka yaa loo dooro doonaa dowlad goboleed haddaad joogtidna baarlamaanka dowlad goboleedka loo doortay adiga waxaa lagaa rabaa mujtamaca degmada lagaa doorta degan nadaafad say ku heli lahaayeen
fayadhowr say ku heli lahaayeen caafimaad say ku heli lahaayeen tacliin say ku heli lahaayeen infrastructureka degmooyinka dhulkaas sida u dhismi lahaa dadku sida ay maxaan ku rahda noloshooda waxa taabanayo siday loo hormari lahaayee waayo waxa lagu doortay haddaad laakiin siyaasadda iyo maalin walba aad tiktoka iyo maxaan ku rahday facebooka iyo meelaha inta taagnaato maalin walba aad hebelaa fiican hebelaa xun iyo laguma dirsan aragtida dadka halka midood u sheegi kartid waxa waaye aragtida oo xisbiga haddii la gaaro xisbigeennu wuxuu u taagan yahay a b c d dalka waxaan ka rabnaa 1 2 3 degmada lagaa doortay dalkii ka mid tahay waxa dalka u roonaa degmadaasna u roon marka ay gaarto meeshaas siyaasadda qaranka ama siyaasadda kor dowladnimo waxa kugu matala xisbiga aragtidiisa dadka waa ka gedi kartaa meel kastoo aad joogtid xisbigu doon ha ahaado councilorkaas laakiin waxaan rabaa inaa ogaatiin aad ha ugu mashquulina arrimaha siyaasadda aad ugu mashquula adeega bulshada bulshadeenna waxa ay la-dahay waa adeeg dadka waxa ay la-yihiin waa adeeg lacagaa laga qaadaa meelo badan dadku waxay dareemayaan lacagta laga qaado inaan wax loogu qabanin dadku waxay dareemayaan lacagtii laga qaaday dhammaan yaa wax loogu qabanin wax ka mid a xataa in wax loogu qabto waagii kambeynka aad ku jirteen ololaha doorashada la rajaynayay ayaa waxaan fiirsanayay dhalinyaro albaab guri inta tegey hooyo ka furta guriga u sheegeen codka gurigan dadka degan codkiisaan rabnaa xisbigaasaana la yiraa a b c d islaanta waa fiirisay waxay tiri haddaan idin doorto maxaa idinka dheefaa ilaa weligeed wax u socdo idooro dhahaana ma arag wax inta u yimiday ballan la galo oo waxaanaan kuu qabanaa waxaanaan qabanaa dhahayana ma arag marka waxay tiri adiga sideena maxaa idinka dheefaa haddii laydin doorto waa isfiiriyaan dhalinyaradii gabara u hadashay wadada albaabka ay taagan yihiin wadada hormartaa biyaa jeexay waa jeexan tahay markaasa waxay ku dhahday hooyo wadadan biyuhu jeexeen ayaan kaa hagaajinaynaa yacni waa waxa ugu sahlan arki karto iskoolaan ku dhisaa iyo maxaan ku irahdaa iyo waa sheeko ayan u jeedin laga yaaba in ilmiheen iskool inay aadaanba oo hadda mushkiladda ugu weyn wadadan oo sanad walba biyu ay kaa jeexayaan biyahaasaan maaraynaynaa gurigaaga hortiisa inuu nadiif ahaado oo meel fiican ahaado ayaan ka shaqaynaynaa haddaadna dooratid ma yeelaysin sidaas waa yeelaynaa ballanaas waa dooranaynaa marka dadku waxay rabaan wax la taabo karo la arki karo oo waa la qabtay lama qaban biri eeda dhihi karaan maalintaa isugu yeertiin inay ida warsan karaan ladii kula xisaabtami karo biri maanta ballantaa iiga baxday biri ku dooramaa in lagu dhihi karo teramka ku dhammaado iska joog laakiin ku dooramaa ilan qof walba in la doorto ama meesha kasii sarraysa loo doorto u rabaa wax qabadku wuxuu ka mid yahay rikoorkaaga siyaasadeed mas-uuliyadda markaan haayay aniga 1 2 3 qabtay haddana 1 2 3 kale inaan qabtaan rabaa waa waxyaalaha dadka aad la soo hor istaagi kartid laakiin haddaadan waxba haayin waxba aadan qaban maxaa sheeganay waxaa dad been sheegtay xataa beentaa waa lagu dhahaa annagaa joogna meeshaan waxa ka qabatana male raalli ah baa lagu dhahaa qof walba ha ku fakaro mar walba dadka waxaad ka rabtay waa ka soo heshay inay cod ku siiyaanaad ka rabtay degaankaaga dadka degan inay cod ku siiyaanaad rabtay waa ka soo heshay codkii waa ku siiyaan hadda adiga marka waxay tahay mushkiladaada inaad ka fakartid dadka maxaa u qaban kartaa intee see wax ugu raadi kartaa see wax ugu hayo waxooda sida ugu fiican oo suurtagalka loogu maamuli karaa cashuurta sidee loo qaadi karaa ayadoo la tixgelinayo duruufaha dabcan dadka ay ku nool yihiin cashuurtii laga qaadayna sida ugu fiican loogu maamuli karaa cashuurtaasi dadka waxay u baahan yihiin oo degaankooda waxay uga baahan yihiin gobolka waxbay uga baahan yihiin qaranka waxbay uga baahan yihiin inahaasoo dhan maa cashuurta u qaybsamay laakiin intii loo soo reebay ee la yidhi degaankan waxa loogu qabto hadda waxaa laga yaabaa degmadii lagaa soo doortay budget miisaaniyad ma laha waxba ma laha
waxba waana laga qaadaa cashuurta waa laga qaadaa marka ha yaraata hadday doonto inkastoo dee dowladdan qaranka soomaaliyeed eed arkaysaan oo dhan oo wax walba u taagan la dagaalanka argagixisada dhisidda dowladda diblomaasiyadda caalamiga ah yacni intaad aragtay shaqaalo from diblomaasi laga soo bilaabo New York iyo Geneva fadhiya ilaa lagu keeno gabadha muxuu ahaa dhulka laamiga noo xaaqaysa inta u dhaxaysa shaqaalaha dowladda jooga mishaar la siiyo mishaarkaas la siiyo iyo wax difaaca amniga ciidanka waxa aad arkaysiin waxa wax oo dhan horta cashuurta gobolka Banaadir laga qaado waa meel kale ay wax uga yimaadeen malaha bal cashuurtaas gobolka Banaadir laga qaado ayaa dowlad goboleedyada in badan oo kamid ah wax laga siiyaa amnigooda lagu soo booliis stationada dowlad goboleedyada ku yaala 80% booliiska jooga booliis federaal oo dowladda federaalka ay bixiso way qarashkiisa in badan dugsiyada ku yaala macallimiinta joogta waa macallimiin payrollka dowladda federaalka ku jirto oo dowladda federaalka lacagteeda ay bixiso marka waa garan kartaan culayska intuu la egyahay waxyaabaha dadka oo diidan nidaamkan dimuqraadiyeynta iyo local councilska iyo waxaan iyo in la dejiyo xukunka hoos loo dejiyo waxay leeyihiin war dadkan la doortay war aniga biri waa la doortay aniga ma yeelay dadkayga lacagtiisa intee la geey intee laga dhaco dhaha intee la geey inuu dhaco xaq u leeyahay laakiin waa loo sheegaa meeshii la geeyaa loo sheegaa saan waa run in la xisaabiyo oo war meeshan lacaga laga daldalay xagee lacagti xagee aadi war intaan xagee ku baxday intaan xagee ku baxday intaan xagee ku baxday in la isiraado way furan tahay laakiin institutionska dowladnimada dhexdeeda isku leenahay ma isku dacaadeynayno ma isku caynayno ma isku aflagaadeynayno muxuu ahay mechanism ee dowladdu lagu xisaabto markaasaan u maraynaa laakiin dadkaaga codkooda inaad ku hadashid oo masaalixdooda aad ka hadashid markaan leeyahay siyaasadda markaa masaalixda qofka siyaasad maaha cashuurtii laga qaaday dadkayga xaggee ku dhammaatay inaad tiraahdo siyaasad maaha dadkaani abuse lagu hayaa waa lagu xadgudbooha dhibaa lagu hayaa inaad tiraahdo siyaasad maaha ayagana sidoo kale waxa ku maqan dowladnimada waxaan idinkama mudnaan dhaafa inaad tirahdid ama waxaanay dowladnimada idinka mudan tahay keena inaad tirahdidna ayadana siyaasad maaha waa sidoo kale marka dhalinyaro mar kale waxaan idin leeyahay hambalyo waa isku soo noqnoqon doonaa laakiin waxaan rabaa gacmo daahir ah wax daahiriyaa la yiri war adiga horta qalbigaaga iyo niyadaada aragti yeelo aragtida aad yeelanaysidna kuwii lalahaan jiray adoo wax cusub raadinaya khaldan laakiin wixii shal lagu soo qaldamay intaa ku noqotid haddaa qaldantid qof dabaalaha tahay wax kaloo lagu fidbaala laakiin adoo wax cusub iyo tallaabo cusub iyo maxaan ku irahdaa innovation raadinayo fikir cusub dhalinaayo wax cusub curinaayo haddaa khaldantid waa lagu qaadan karaa waa la aqbali karaa ha laakiin shalay kii kaa horreey meesha ku qufay oo ku qaldamay oo kii kasii horreey oo ku qaldamay haddana haddaad ku qaldanta adiga dee markaas damiinaad tahay qof damiinaad taha lagu dhaha ama waa ugu talageliyaa lagu dhaha kas ula kac u yeela la dhaha waa ogaay in meeshaan waddadaani aanay meel tegin waa ogaay waa lagu dhaha dadkeenna isbeddeluu u baahan yahay isbeddelku waa xanuun badan yahay waa dacaayad badan yahay waa lagu dacaayadaynaa waa lagu eedaynaa haddaad eedda ka cararto oo dacaayadda ka cararto oo reer hebel yay ku eedin aad istiraa oo saaxiibkaa hebel ama saaxiibadaa hebel yaanay ku eedin aad istiraa oo waxaan amaa ku fashilantaa aad istiraa meel tegi maysid ogaaw bartiis yaqaan bara uma korortaan noqonin wixii la samay jiray waa naqaanaa wixii nooga soo bixi jirana waa naqaanaa waana anfici waayeen inaan soconno oon meel cusub iyo wax cusub iyo waxa aan rabno oo qalbigeenna ku oodan inaan tagnaan rabnaa marka dhalinyaro mar kale iyo mar kale waxaan aad iyo aad idinku dhiirigelinaa idinku bogaadinaa in aad waxqabad u dhaqaaqdaan maxaa u qaban kartaa degaankaaga war maxaa qaban kartaa 1 2 3 baahiyadooda ka jirto ma qaban kartaa maya maxaa qabataa halkaanaan qaban karaa halkaas qabo kaas ma qabsooma haa muga tiraadaad kuwa kale u soo jeesan kartaa deegaanada baahida ka jira waa badan yihiin prioritiska ama hortabinta leh waa badan yihiin xulo kuwa ugu muhiimsan 1 2 3 intaana aniga wax ka qabanaa 3 bilood soo socoto 6 bilood soo socoto sanadka soo socdo qofkan qorshe samaysanin
أما هي أدي إنستيوشن كي أن قرشة هين وحا قرشة إنه فشله هذا قرشة هين قرشة فشل اللي راه ملكو يالو كسوغاي كاسات كو دمانay sidaas daraadeed qorshe lahaw qorshe yar oo gaaban oo aad xaqiijin kartid lahaw markaad xaqiijiso jaranjarta talaabadeeda midba mar lugta la saaraayo si guriga muxuu 10ka dabaqa loo koro oo kala waay hoos ka bilaw adoo dhulka joogtid dabaqa shanaad ku boodha isdhee kan koobaad ka bilaw talaabta jaranjarta tan ugu hoose isku istaag talabaad ku istaag darbiga si qabso هذا قدر أصول نقطة هذا النقو كسي نقو ماشت كجاريس ماشي سوا هالرجين إن أي والبوح وقروح بدل بريق أذيك أجارت لكن وضدي اللي هو جاري لا دور شوي ناس سميني بقول سيد الربي ضد الربي تردي الربي وحيل الربي بقول معه وأما أن هذه قروح بدنا هنا دعنا لكن هذا نقول وحول مالك قرحان اللي جاي كري لايد لكن وابلوني يا وانك بري انت ترى يمادو ما انت انغا بجوجنا بري انت ترى يمادو دهايو مخو هاي دغمه هبل waxaan u magacaabay gudoomiye sheekadaas waa la soo xiray beejkaas taariikhda waa la laabay degme hebel waxaan u magacaabay gudoomiye heblo ama gudoomiye heblaayo iyo muxuu ahay degme waa baxnayo councilkii degmada soo dhisaynay sheekada soo dhamaatay taariikh waay dhalinyarada Soomaaliyeed ee dhageysanaysa meel kasta ay dalka ka joogtana ha u diyaar garowdo in ay doorasho galaan is doortaan degaankooda ay ayagu maamushaan ayagoo maxaan ku raadaa reer hebel iyo ugaas hebel iyo garaad hebel iyo maxaan ku raaddaa malaaq hebel una keenin oo dad kale oo aaminay oo ku kalsoonaaday ay codsiyeen ay keensadeen meeshaas waaye meesha aan Soomaaliya u wadno bilowgeedii waa adika abuurkiyaad tihiin beer fiican badar fiican hadii ka soo baxo war kuwii horaaba lagu khasaaro balaaya ka dhacday waxaan naga daayay waa muxuu ahay yaan biriyan nala dhihin guuleysta khayr idin rajayna insha Allah aad iyo aad u mahadsantiin